kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal mar kale ku soo dhawaada barnaamijka xog waran waxaanu xogihii ugu dambeeyay idinka haynaa magaalada Laascaanood dabcan halkaas oo iyadu colaado jooga waxaan la soconay in odayaal ka yimaada magaalada Muqdisho ay soo gaadheen magaalada Laascaanood kuwaas oo qayb ka ahaa waan in lagu soo dabaalo xaaladda Laascaanood oo iyagu markaa isku dayay inay doorkooda ka odayaal dhaqan ahaan ay dhinacyada isugu soo dhaweeyaan balse intii waxa ka dambeysay dowladda Soomaaliland mas'uuliyiin u hadlay ayaa sheegay oo si bareer u sheegay in ay dil ay ugu xukumayeen odayaashaasi sidoo kalena hadii ay qabtaan ama hadii ay arkaan ayna marnaba cafinayn inta waxa hore ugu horeysay in afayeen u hadlay militariga Soomaaliland uu dabcan sheegay in dagaal weerar lagu qaadi doono isla markaana ay magaalada xukun militari ay ku qaban doonaan ciidamada Soomaaliland uu dabcan sheegay in iyagu wax badan xeerinayeen isla markaana ay ahaayeen kuwa xarumahooda ama xeriyahooda ku sugan oo weerar ay ku soo qaadayeen waxa ugu yeedheen kooxaha huwanta iyagu markaa ay sugan qaarna gaxisa iyo Puntland iyo dowladda Soomaaliya lafteeda ay ku sheegayeen dabcan magaalada Laascaanood xaaladeedu waa mid iyadu markaa colaad kulaalayso oo mar walba laga filan karo inay xabadu qaraxdo ciidamaduna waa ay sor fadhiyaan balse Soomaaliland oo dabcan muddooyinkii ugu dambeeyay beesha caalamka kaga galeysay war saxaafadeedya ama baaqi ay soo saarayeen oo dabcan ku sheegayeen in iyaga weerar lagu soo yahay kooxahan weerar ku soo qaadeen beesha caalamkuna ay ahayd iyadu markaas war aan ka dagaynin oo dhuunta u taagnaa balse ugu dambeyntii Soomaaliland ayaa isku maqraad furtay in iyagu weerarka ay qaadayeen kadib markii ay militarigoodu si cad u sheegeen in ay xukun militari ku qaban doonaan weerarka wadambeysara ay ku halaagi doonaan magaalada Soomaaliland ayaa iyada lafteeda iyada hadaladeeda sii wadato waxay sheegtay in dagaalka ka dhanka ah kooxaha argagixisada waxay ugu yeedheen ee gobolka halista ku ah ay beesha caalamku ka taageerto isla markaana ay soo ciribtirto magaaladana ay gacanta ku qabato Cabdiraxmaan ayaa qayb igala barnaamijka dabcan qabkayga fadhiya inta badan aan barnaamijka wada falanqeynaa Cabdiraxmaan oo soo dhaw xaaladda Soomaaliland iyo Laascaanood maxaa u dambeeyay bismillaahir rahmaanir rahiim Laascaanood waxa u dambeeyay in ciidamadu isku hor fadhiyaan aagagii saldhigyadii ay ku dagaalamayeen maalintii u dambeysay ay ku dagaalameen waan gartay waa gooja cadiya hareerihiisa waxa u dambeysay inay waan nabadeed ay odayaal qalbi samaan oo ni soo qaaday ay Muqdisho ka yimideen garowa soo mareen Laascaanood yimideen odayaasha dhaqanka ee beelaha Muqdisho degan ama hawiye waxay wadeen waan sababta waxay soo arkeen inay dhexdhexaad yihiin xigta iyo qoys hadii la yiraahdana Muuse Biixi ku u habar wacanaya iyo Faysal Calwaaraha ay lahaayeen irir baan isku nahay inay ka soo jeedeen sababtoo ah dhankan sokana ay tageen dhankii sokay ka bilaabeen booqashadii si fiican baa loo soo dhaweeyay waa la sii qaaday waxa la tusay sida wax u dhaceen waxay arkeen cadayn kasta waxay arkeen xasuuqi magaalada loo geystay waa loogu xog waramay aad bay ugu qanceen wixii loola yimidna waa lagu heshiiyay oo ay wateen dhanka kale waxay damceen inay Hargeysa ka dagaan iyagoo dagistiiba iyo aqbalaadii xil isla gaadhay yaa nin mas'uul oo Soomaaliland saraakiisheeda kamida yaa hadlay wuxuu yiri hadal baa ka dambeyn haday Hargeysa yimaadaan alashan waa la isweydiin odayaal baa waa Hargeysa booqday yaa la isweydiin ma imaan karaan haday joogaan halkaana waan qabanayna Laascaanood bartoodan ku duqeynayna nimankaasi waxay tuureen dhamaanba albaabadii waanta ee furnaayo odayaasha Soomaaliyeed ama beelaha Soomaaliyeed nooc kastay doonaan ba ahaadaan ay gali lahaayeen way tuureen dhanka kale Soomaaliland waxay soo saareen war saaka waxay yiraahdeen caalamku waa inuu na dhageysanin warka la buunbuuninaya uga imaanaya Laascaano ee qoliyaha argagixisada al-shabaab saadalka u dhigan iyo Puntland iyo ciidamada habargida iyo xawaale meel hebla laga keenay iyo jiniye jaanka nala dagaalamaya wararka ay soo tabinayaan waa inaan caalamku dhageysanin beesha caalamku waa in anaga warka naga qaadataa iyaga warka laga qaadan magaalada kuma sugna god yaro gooja cadalado ay kaga sugayeen waa in anaga warka naga qaataa beesha caalamku taa beddelkeeda waa in nagu taageertaa inay aanu meeshan gacanta ku qabanno waxay ku sii dareen maamulka Puntland ama Majeerteeniya yaa nala dagaalamaya oo weligiiba u talaaba tukanaya inuu qabsado ama damacay kaga jiray dhulka naga
kaas baa wuxuu ku sii daaray taraq colaadii isfahmi waagii yaraa ee dhex yaalay beesha reer Sool iyo dowladooda oo Somaliland bay ka wadaan taraqa markuu ku daarayna wuxuu uga faa'iideysanayaa inuu Somaliland dhulka qabsado tiibayna shacabku moodeen inuu yahay maamulkaasi maamul daacada iyagoo maamul shisheeye ah luqadda sidaa u adeegsanaya waxaa ka dhex faa'iideystay weeyaan kooxaha Daesh ISIS iyo Al-Shabaab oo iyaguna dantooda inay Somaliland dumiyaan waxaa meesha ka soo socota awood khatar ku ah geeska Afrika gaar ahaan Ethiopia iyo Djibouti waxa isweydiin leh Ethiopia xad bay leeyihiin oo lacala madaxdooda halkan Djibouti meeshu cadawgaasi u maray warar iskhilaafsan oo aad ku wareerto oo aad la yaabto oo aadan dhanna u qaadi karin yaa Somaliland ka soo yeedhaya waxa hadlaya nin kasta afayeenka ciidanka hadli afayeenka madaxtooyada hadli wasiirkii warfaafinta hadli maxay telefishinkii qaranka hadli nin walba meeshu ka soo gaaro iyo wuxuu rabo ku hadli waxa laga midaysan yahay ciidamadeenu waxbay weerarayaan markii hore difaac baa ayna hadda waa weerar baan ku qabanaynaa weerar baan ku sameeynaa waxaana la dagaalamaya ciidamada argagixisa ah iyo jabhadaha maxayga ah iyo jin iyo jaan waxyaabaha noocaas waa war aad looga fajaco dhanka kale xagga jamaahiirta waxa lagu jira diyaar garowgii ugu dambeeyay ee lagu qaban lahaa Gooja Cadde waxa laga yaabaa maanta inuu dagaal qarxo say u badan tahay maanta ama berri inuu dagaal qarxo qaabka loo diyaar garoobayo saansaanta sida loo wado shaxda la dajinayo qaabka maxaan ku dhahay shacabku uu dhiiran yahay taakulaynta ciidanka lagu wado inay maanta ama berri u dagaal dhaco oo meesha iyada lagu qabto yaa suurtagal ah hore waxaan ogeyn inuu khilaaf ka dhaxdhacay ciidanka Gooja Cadde ku sugnaa ee Somaliland ciidamada dhowr iyo 70 oo gaadiidkoodii wataana ay bixeen oo maxaan ku dhahay Israa'iil hoosaad la sheegay inay Muuse Bix isku family yihiin mar haddii ay jamaahiirtii sidaas u soo dhiiran yihiin Somalilandna wararka qubuxa ah ee aan la kala garanaynin run iyo been iyo maxaan ku dhahay wax ka keenay wuxuu yahay ay wadaan waxay u noqonaysaa inay maxaan ku dhahay la sugo guusha iyo dagaalka iyo dhamaadkiisa Somaliland waxyaabaha ugu la yaabka badan ee hadda laga diiwaan gelinayo waxa kamid ah yani beesha caalamku ugu taageerto in la saana weerar oo de la yaaban yahayba nabad baa lagu bariyay يعني حبم للتريبان كو قبانيا هاي ugu taageerta beesha caalamku waa hadal aan la yaabay oo aan hadal noociisa hore uga maqalin maamul dhisan aanan uga maqlin oo la micnauna waxay soo weeraray hebla abayni yariga celiyo nin weyn ugu sidaaday weeye shacab gadooday oo hal magaalo degan yaa maxaan ku dhahay la dagaalamaya Somaliland kaas waxay dhigay waxa ku jira beelhebla iyo dawlad deegaanka Soomaalida iyo booliskiisa iyo Puntland iyo Kayadi iyo kan waa arrin aan aad iyo aad dhagaha caalamka iyo dhagaha bini'aadamka inuu waxsan odayaashii iyagu waa maanta u saaday Muqdisho ka yimid may laabteen mise magaalada Laascaanood ku jooga odayaasha qorshahooda waa inay laabtaan wuxuuna ku yahay meeshii inta beesay bay gaareen halka meel ka dambayso u socon karaan ma laha mar haddii Somaliland tiri haddaan arkaba waa toogasho هذا way garaabeen wararka qaar waxa sheegeen in lagu dhiirigeliyay inay iska celiyaan oo jabada asana iska bixiyaan mar waxa wararka qaar sheegayaan inay arkeen oo ay ka garaabeen xasuuqa dadka lagu hay yani waxa loo update gareeyay oo loogu xog waramay si buuxda intuu taabsiib la tusay ka hor dagaalka asana waxay sameeyay jirtay baa la tusay deegaanka si uu maamulayay u gumeysanaysay way ka garaabeen wax kale marka shaqo u sii taalaay ma ay jirto waxa uu la sugayaa inay ama markay laabtaan ama ay joogaanba ay warmurtiyeed soo saaraan waayahay hadii aynu beesha caalamka kale dabcan waxaan la soconay in ay iyaga laftooda baaqay ay soo kala direen in dawladda Mareykanka oo kale ay aad isugu hawshay iyadoo Ethiopia la leeyahay soo dhaxmaraysa Ethiopia la soconay inay taageeradu imika raadinayo go'aankii Mareykanka maadaama hore u diiday warsaxaafadoodiyadii waxyaabaha dadka laga gadanaya ahaa waana la soo weeraraya imikana iyaga ku dhawaaqeen in ay weerar yihiin talaabadaasi beesha caalamku maxay ka taageeri kartaa Somaliland bal leeyahay waxaan malayn waxyaalaha la yaab kale weeye waxaan malayn baalkan la yiraahdo geedkan qaadka la yiraahdo ku badan yahay gobolada waqooyi sida Somaliland Hargeysa Muuse laftiisu inuu ogeyn baa laga yaabaa waxaan oo warsaxaafadeed iyo hadal iska soo garabaxaya
nin walba meeshuu joogay buu kaga qaado aan kuu sheegay telefishinka qaranka warfaafinta afayeenka ciidanka maxayga kii kala dagaalgelinta hebelka nin walba waa hadlayaa hadalkaa marka ma wax laisku wada ogyahay oo inay nin walba suu doono u hadlaa ma nin walba wixii la qumanaado ku hadlay ma nin walba wixii mirqaankood tusay buu ku hadlay waa la kala garan laayay inta badan muuse maba hadlayaba waxaa hadlaya yacni wax laan kasta laantii meesha ka soo aaday baa hadlaysa weli waxaanun hadlin baan u malayn madaxa taraafiga iyo maayarada magaalada umaan ka hadlin dagaalka oo yacni dee aan bayaan ka soo saarin noocyadan ah marka dowladdii laamaheedii kala duwanaa iyo wasaaradaheedii kala duwanaa waxay ka wada hadlayaan oo ay ku wada fogan yihiin dagaalka nin walba marka wuxuu ku hadlayaa wax aan afka dowladda u qalmin nin walba wuxuu ku hadlayaa waxa shacabku ka yaabaan waxaan afka dowladda u qalmin muxuu yahay yani waxaan afka dowladda u qalmin waxa weeye awood military baan shacabkaygii aan anigu maamulaya haddaan dowlad ahay yaan awood military ugu hanjabi aan ku qaban waa arrin la yaab leh shacabkii oo iga taageera maxaan ku dhahay caalamkii beesha caalamka oo iga taageera inaan shacabkaygii isoo barakiciyey ee ila dagaalamay iga gadooday aan dib u laba qabsado waa arrin la yaab leh odayaal dhaqan oo waan wada in haddana la yidhaahdo hadday yimaadaan sheeg baa ka dambayn iyo ma imaan karaan iyadna waa wax la yaab leh waxaasoo dhan inay dowladaha dariska ah iyo maxaan ku dhahayay dad aan shuqulba ku lahayn dagaalka lagu eedeeyo la yidhahdo hebel iyo hebel iyo hebel iyo hebel iyo hebel iyo dariska ila dagaalamaya oo dhaxdayda dagaal ka wada iyana waa wax la yaab leh waxaa kaloo la yaab leh dadka aniga iga qabsanaya laascaanood waxay khatar ku yihiin geeska afrika siiba jabuuti iyo ethiopia waa wax la yaab leh waxaasoo dhan marka wax nin fayow uu ku hadlo ma ay ah waxaan u malayn askarta gooja cadda joogtan baa qorta beejajka nimankaasina dee niman la wareysan kara ma waa niman dhan kasta laga fadhiyo waayahay ugu dambeyn odayaashii dhaqanka ee 33 ahayd iyo qoladii guurtida ee Sool iyaga xagay ku dambeeyeen way isugu toosantay kuwaas siyaasiyiin bay u guuleysteen military ahaan bay u guuleysteen shacbiyan iyo muwaafaq ahaan bay u guuleysteen taageero iyo garawsh ahaan bay u guuleysteen marka kuwaas way isugu toosan tahay kuwaas hadda farxadooda ah aad baad u mahadsan tahay intaa ayaan ku saafmeeraynaa barnaamijka xog waran oo dabcan idinka warramaynay xaaladihii ugu dambeeyay magaalada Laascaanood halka ay Somaliland sheegtay inay weerarka madambaysa ku qaadi doonto kooxaha ka dhex dagaalamaya sida ay sheegeen magaalada Laascaanood inta barnaamijka xiga ku kulmi doono waxaan idin leenahay sida iyo nabadgeliyo rabada wanaagsan